Asalaamu calaykum. Booliska Hindiya ayaa sheegay inay qabteen nin ay ku tilmaameen dilaa halis ah kaasi oo qortay inuu ku lug lahaa dilka 50 qof oo ka mid ah darawallada tagaasida ee dalkaasi. Odayaasha ayuu sheegay inay dili jiray kadib marka uu kiraysto. Dilaagan ayaa sheegay inuu darawallada dili jiray kadib marka ay marayaan goob cidlo ah, kadibna uu meydadka darawallada ku duuli jiray dhaambiyooda ay ku jiraan yaxaasyo halis ahi. Dhacdadan ayaa argagax ku riday dhammaan dadweynaha Hindiya ee raaca tagaasida. Warbaahinta caalamka ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad wax uga qorayay ninkan iyo dhacdadiisaba. Halkani waa Qorshe Media iyo anigoo ah Cabdilaahi Aadan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta daawadayaal. Number 1. Intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2004, Defender Sharma waxaa lagu xukumay dil kadib markii uu dilay ilaa 7 darawal oo kuwa tagaasida ah, waxaana lagu xidhay Jaipur oo ah magaalo ku taalla gobolka waqooyi ee Rajasthan. Kadib markii uu 16 sano xabsi ku jiray, 62 jirkan waxaa la sii daayay siideyn gaaban bishii Juun, laakiin markii uu 20 maalmood ee uu bannaanka joogay ay dhammaadeen, Sharma kuma uusan laaban xabsiga sida ay sheegeen boolisku. Qiyaastii 6 bilood kadib markii la waayay, booliska Hindiya waxay ku xidheen Sharma caasimadda Delhi, halkaas oo kula noolaa gabadh uu guursaday. Tan iyo markii uu ku soo noqon waayay xabsiga, damiinka lagaga sii daayay. Markii wax laga weydiiyay Sharma, waxa uu qirtay inuu jabiyay sharciga kuna soo noqon waayay xabsiga, isla markaana uusan qorsheynin inuu xabsiga ku laabto, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen booliska Delhi. Sida laga soo xigtay booliska Delhi, Sharma waxa uu kaloo si faahfaahsan uga hadlay dambiyadiisii hore. Sharma waxa uu shahaadada koowaad ka qalin jabiyay daawo dhaqameed Hindi ah, wuxuuna ku qaatay xarun caafimaad cisbitaal ku yaalla Rajasthan 11 sano laga soo bilaabo 1984, sida ay sheegeen booliska Hindiya. Kadib markii uu lunsaday lacag khiyaano ah, waxa uu ku lug yeeshay qorshe lagu iibinayo alaabada gaaska been abuurka ah, kadibna wuxuu ka qayb qaatay mashruuc lagu iibinayo kaliyaha dadka, taasoo loo mariyo sifo sharci darro ah, waxaana lagu xidhay 2004 kiis. Sida laga soo xigtay booliska, waxa uu qirtay inuu ku lug lahaa in ka badan 125 isku beddelka kaliyaha dadka ah, iyadoo mid kasta uu ka helayo inta u dhaxaysa $6,680 iyo $9,350. Sharma waxa uu booliska u sheegay in isaga iyo kuwo kaleba ay ka shaqeeyaan qorshe kale oo lagu kharajinayo tagaasilayaasha gobolka waqooyiga ee Uttar Pradesh. Waxa ay kireystaan tagaasida, kadibna waxay darawallada ku dilaan meelaha cidlada ah, kadibna waxay meydadka ku tuuraan kanaal ay ku nool yihiin yaxaasyo halis ahi, taasoo ay ugu talagaleen inaan la helin hadhaaga meydadka si aanay booliska u helin xogtooda, fursadna aan loo siin saxaafadda. Kadib marka meydadka lagu daadiyo webiga, Sharma wuxuu ku iibin jiray tagaasida iyagoo furfur ah ama gawaadhida oo la midab dooriyay, wuxuuna baabuur kasta ka helayay ku dhowaad $270. Sharma ayaa ugu dambeyntii qirtay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay dilka in ka badan 50 darawal oo ah kuwa tagaasida. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu xukumay kaliya in yar oo ah dilalkaasi, sida ay sheegeen booliska Delhi. Marka loo eego warbixinada warbaahinta maxalliga ah ee soo baxay laga soo bilaabo 2008, Sharma boolis ayaa markii hore gacanta ku dhigay asaga oo ku guda jira fal dil darawal ah. Dilaagan caadaystay inuu gumaado darawallada ayaa shaqadan ku guda jiray dilka ah ku dhowaad 18 sano.